حياتي كلها لله فلا مولى لنا إلا أحب الله جل علاه ومن حبي له أخشى حياتي كلها لله حياتي كلها لله فلا مولى لنا إلا حياتي كلها لله فلا مولى لنا إلا أحب الله جل علاه ومن حبي له أخشى حياتي كلها لله أصون النفس أحميها بنور الله أهديها النفس أحميها بنور الله أهديها بحب الله أسقيها لتفرح عندما تلقى بحب الله أسقيها لتفرح عندما تلقى حياتي كلها لله حياتي كلها لله حياتي كلها لله فلا مولى لنا إلا حياتي كلها لله فلا مولى لنا إلا أحب الله جل علاه ومن حبي له أخشى حياتي كلها لله إذا ما الحب لم يسبي فؤاد المؤمن الصبي إذا ما الحب لم يسبي فؤاد المؤمن الصبي فوا أسفا على القلب لأن الزيف قد غشاه فوا أسفا على القلب لأن الزيف قد غشاه حياتي كلها لله حياتي كلها لله فلا مولى لنا إلا حياتي كلها لله فلا مولى لنا إلا أحب الله جل علاه ونتوك إن شاء الله تعالى ويجاني برامجك ويجاني وحي إنه وعزوم برامجك إلى تلي الشيخ عبد القادر بوبي الله سبحانه وتعالى هي نوح دي الشيخ حسن إبراهيم عيسى الله سبحانه وتعالى أسجنا هي نوح دي نعاو وحي ديار ويهين قلك إسلامك التقوى إنه ولا له ذا إلى تليان ومسلمين تاع الدنيا دافه ذا كلا جوجو دمان ولا لها دمان ولا سود وينا إن شاء الله تعالى قيبت في بيدنا نوصف ليست طبعا لنا إن شاء الله تعالى هذه أدبان ودقيس دونا وحنكم بالله بدونا إن شاء الله تعالى الشيخ حسن إبراهيم عيسى هدي وجوجو برامجكو إنه نوفر إن شاء الله دقيقة كدبنا الشيخ عبد القادر بوبا أسجنا دقيقة عمل إنه سوقت إن شاء الله أسجنا سداسة عمل إنه فرفر الله سبحانه وتعالى حفظيه الشيخ عبد القادر الشيخ حسن إبراهيم عيسى وجوك تاسم عن شيخنا إلهي waxaan ka baryaynaa inuu xaqana waafajiyo insha allahu tacaala sawaabtii sida khayrka ku jira ilaahay inuu nagu sugo ilaahi subxaana watacaala dad xaqa iyo diinka iyo wanaaga ku socda inuu ilaahay naga dhiga insha allah taasaan rajaynaynaa barnaamijkeena waa bilaabanaynaa insha allah nacam الله سبحانه وتعالى هكو حفظيه الشيخ حسن إبراهيم عيسى الشيخ عبد القادر بابا أن جعله إن كستو هذا أو كلمة أو كدقي إنه أسجنا أي شيء إن شاء الله تعالى أو إنه فرفر برامج كأسجنا يسوق بصدق برامج كان دور هبين وكلته نقل قيب قال إن شاء الله تعالى سيدو أسجنا إنه فرفر الله سبحانه وتعالى إنه حفظيه الشيخ عبد القادر بابا فليتفضل الرحيم عبد اللطيف أخي إن شاء الله تعالى برنامجكم إنه فرنيا هاي الشيخ حسن ضفري كل سعد وجزاك الله خير بارك الله فيك جزاك الله خيرا الله سبحانه وتعالى هينوكا حفظي الشيخ عبد القادر بوبي سدا aan filayno qadar saacada camalana ii sheeg muxaadaro waa inoogu jirtay in naga raali noqo insha Allah taala hadii aan ii sheeg caawa ii sheeg aad aan hadalka kaga badinay ama barnaamijkan xitaa aan kugu soo casuunay adiga hadda muxaadaro ka baxay Allah subhanahu wa ta'ala haynooka xifdiyo waan ka gudbaynaa insha Allah taala barnaamijka waxa aan ku furfuro doonaa qofka ugu horeeyay ee in soo gaarsiiyo insha Allah taala ila taladiisa walaashan waxay leedahay assalaamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh taladani ii gudbiyo waxaan ahay gabar uur leh waxaa jirto markaad dhali rabto waraaqad la buuxiyo
ayaa jirto oo la isku diiwaangeliyo qaybta dhaliinka loo diray oo meesha qaliinka saalada markii la isa saarayo waxa lagu leeyahay cunug aad dhalayso wiil ama gabar magaca qor marka waxay leedahay waxaan ka cabsi qabaa warqadaasi la qorayo wiil iyo gabar inay dambi igu noqoto maadaama adduun iyo aakhiraba aan u dhexeeyo dhalmada sidaas ay tahay marka waxay leedahay arrintaasi ma qori karaa mise waan iska dhaafaa bay leedahay alla subxaana watacaala ha xifdiyo walaashaasi sheekh xasan ibraahim ciise baan ku bilaabaynaa sheekh xasan ibraahim ciise falyatafadal insha allah intaadan ka degin maxaa la qorayaa wiila dhala iyo gabadha dhala miya magacyada caruurtaasi baa la qorayaa waxa aad dhali rabto haddii ay noqdaan macnaha haddaan wiil dhalana hebel baan u bixinaa haddaan gabar dhalana hebel aan u bixinaa miya nacam ha way fiican tahay qoro insha allahu tacaala seeda kale hadda sidaan la socono gabdhaha waxaan umu watoo dhan ama wada garoob ama wada gabdha marka la fiiriyo umu khaalid iyo umu bilaal iyo umu aawey umudii kale umu romaan iyo umu muniira iyo umooyinkan oo dhan macnaha waa laba mid marna waxay dhahaan raggan isaga difaacnaayo waxaan rabnaa inaan nuuqna looga soo gelin aybaadna loo khashaadaa dhibkaasaa nala gaarsiiyaa taasna waa isaga dadbaan ta kalena waa gabdho aan weli wax dhalin oo rabo ilmaha ay dhali doonaan inay u baxsadaan rabaa ayaa jira marka hadda ka horna waa idiin sheegaa oo maleeya umooyinkan iyo umu khaalid iyo umu bilaal iyo umu muscab iyo umu anas iyo umu magacyo fiican waaye hadda ka hor waa idiin sheegay gabar la yiri magacaa maxay tiri waxaa layidhaha shugul codweyn too kale waxaa layidhi magacaa deeqa jeesto too kale yidhi magacaa sacdiye maykel marka waxaad fahmi kartaa magacyada hadda umooyinkan iyo tii hore farqiba u dhexeeyey waa shay wanaagsan waayo qof kasta waxay jeceshahay hadda magac saxaabi inay baxsato gabar saxaabiyad inay baxsato bedel maa markii hore ubaxa kacaankii waxyaaba magacyadaas ay baxsan jireen haddana waa waxyaaba fiican insha allahu tacaala marka waan kugula talin lahayn laba magac oo wanaagsan haddaan gabar dhalana waa ii heblaayo haddaan wiil dhalana waa ii hebel magac waa lasii bixin karaa xataa intaan cunuga la dhalin waatii xataa ilaahay yiri subxaana watacaala markuu zakariya ilaahay baryay waxaan u hibaynay amaan kuu bishaaraynaynaa bigulaamin ismuhu yaxya lam najcal lahu min qablu samiya macnaha magac ugu horeeya yaxya la bixiyo sidaa darteed weli lama dhalay markiisaa la dhahay marka gabadha hadday dhahdo haddaan wiil dhalana hebel baan u bixinayaa haddaan gabar dhala hebel baan u bixinaya wax dhibaato kuma sugna insha allahu tacaala laakiin magac fiicanoo ilaahi subxaana watacaala raalikaaya ama saxaabi ah ama nebiyada ah ama magacyo fiican u dooro insha allah nacam جزاك الله خيرا شيخ حسن إبراهيم عيسى الله سبحانه وتعالى هكو حفظي ميزانك قيامنا كو صار شيخنا waxaan filahayaa inaad ii sheeg gabadhaasi aad iyo aad uga bagatay sidoo kale walaashaan waxay leedahay assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu maxaan sameeyaa facebooka baan iskaga taag waayay bay leedahay ila taliya caawa shuyuukhda ila taliyaan bay leedahay walaashaani qadarkii hadda muxaadaradii inoogu dambeyso sheekh booba uu ka hadlaya facebookana inuu hadaladiisa ay ku jireen baan filahayaa sidoo kale caawa sheekh xanafi uuna ka hadlahayay mar facebooka waxyaabo xunxun oo aad iyo aad u tiro badan inay ii sheeg ay kusoo kordheen marka walaashaani waxay leedahay waxaan iskaga taag la'ahay facebooka aad baan updating ugu noqdo sidii qof ii sheeg mar walbeed inaan soo fiiriyo aan jeclahay mar walbeed wixii soo kordha aan fiiriyo xaaladaha aan la socdo aad iyo aad marka waxay leedahay shuyuukhda inay ila taliyaan baan rabaa marka sheekh cabdiqaadir booba baan u yeerahay insha allahu tacaala walaashaasi si loo taliyo iyo waxyaabihii oo ii sheeg oo kula tali lahay walaashaasi falyatafadal sheekh cabdiqaadir boobe waa fahmay cabdiladiif waxaan u fahmay waxaan isaga taag la'ahay aaladan la yidhaahdo facebooka ayaan isaga taag la'ahay oo mar walba aan jeclahay inaan haddii ilaahay ku runayo soo booqdo sidaas miya cabdiladiif sidaas miya sheekhaygu waa sidaasi aaladaas baan aad isaga taag la'ahay bay leedahay qadar daqiiqadaha walba newska kusoo kordho inaan fiiriyo baan jeclahay bay leedahay marka ii sheeg walaashaasi la tali insha allah qodobka koowaad ee walaasha aan kula talinaynaa waxa weeye
Facebook dil laba afla sida baltogan hadda aanu adeegsanayno ayaa khayr iyo sharba markaa loogu adeegsan karaa kow hadday gabadhaasi aanay yarayn karin haddii ilaahay ku run yahay aan kula talin lahaa qodobadan soo socda kow horta waktigaaga ayaanu Facebook qaadanin jadwalkaaga nololeed iyo waktigaaga waxaad ku mashquulisaa goobaha khayrka iyo meelaha khayrka lagu hayo qodobka labaad haddaad kullay booqanayso khayrka iyo wanaagga iyo samaha ku faafi kunu acwaanan lilkhayri khayrka kuwa faafiyo garab istaaga noqo maqaalada muxaadaraadka duruusta haddii ilaahay ku roon yahay waxyaabaha wanaagsan ku faafi qodobka saddexaad waxa weeye iyadana sawir ha saarin ama ha ahaado mid xaqiiqi ah oo markaa adiga muuqaalkaagii ka turjumaya si aan dadku ugu fitnoobin ama sawir kale oo muuqaal yacni markaa cid kale ka turjumaysa oo been ah oo dadka markaa aad ku gaadaysana ha saarin qodobka afraadi wuxuu noqonayaa haddaad gelayso waxaad iska baangaraysaa waxyaabaha xunxun facebooka aad furatay waa inaan weel u noqon meel sharka lagu faafiyo waa inaan noqon waa inuu noqdaa xaqa iyo baadilka siraac iyo loolan iyo legdin baa ka dhaxeeye mid xaqa loogu adeego bal naqdifu bilxaqi cala albaadili fayadmaquhu faidaa huwa zaahiq muddada hore friends badan baa laysku darsadaa iyo saaxiibadaa kugu soo darsanaya xadhig jiidad baa idinka dhaxeeya ayaguna waxay kaa gadayaan macaasidooda iyo shahawaadkooda iyo naftooda waxay jeceshahay adiguna khayrka iyo wanaagga u gudbi hadday markaa damcaan inay macaasi ku faafiyaan facebookaaga iska baangaree oo iska xidh haddaad aaladda wax ka taqaano haddii aadan aaladda wax ka aqoon ha ku fitnoobin ee inaad iska daysaan kugula talin lahaa jasaakum allahu khayran wasalaamu calaykum sheekh cabdiqaadir booba alla subxaanahu watacaala ha ku xifdiyo alla subxaanahu watacaala miisaanka qiyam ha ku saro waxaan ujeedaa sheekh xanafi asagana caawa arrintaani facebooka ku nuuxnuuxsanahaya baan arkayay alla subxaanahu watacaala ha xifdiyo bal qadar daqiiqada baan ka siinahaya asagana arrintaas fadal insha allahu tacaala sheekh xanafi assalaamu calaykum waraxmatullah tala ka dhiiban maayo sheekha ilaahay ha xifdiyo ayagaa tala ka dhiibay laakiin information yar baan rabaa inaan ku daro alkhabru laysa kalmucayan odayaashu hadda war badan inaysa hayn baa suuragal ah horta gabadhan leh waxbaan iskaga kar la-ahay keligeed maahane waa badan yihiin firaashyaha u yaalla iyo barkimo oo dad badan baa meesha seexda hameenkii 24 saac online meeshay seexdaan meeshay kasoo toosaan meeshay ku qadeeyaan meeshay ku qaraacdaan dadka ma seex horta waa iska kari la-dahay waa midaas caruur lama yaqaano oday lama yaqaano ehel lama yaqaano waxbarasho lama yaqaano qur-aan warkiisa daa sunnayaal daa meeshay hotel meesha u ah oo ay seexdaan horta informationkaas waa qodobka koobaad qodobka labaad waa meel lagu faano ina shaf dalooliyaan ahay baa la yiraahdaa culimada rabaa inaan iyo dad kale aan warka hayn baa rabaa inaan warka siiyo waa meel lagu faano oo la yiraahdo ina shaf dalooliyaan ahay gabar qurux badan baan ahay wiil qurux badan baan ahay qof kasta waa isku soo bandhigaa oo haddii rabbi ku idmaya carruurtayda arka dariskayga arka gurigayga arka fadhigayga arka shaahayga arka darbuuskayga arka waxaasaa lasoo bandhigaa waxaa kan la yidhahdo wahakada halmujara allahuma salli calaa sayidina maxamed sidaas oo kale waxaa kan la yidhaahdo waxaa jiraba meesha ku yaala waxa la yidhaahdo friendisku waa saaxiib weeye gabadhu intaas oo wiil oo saaxiibay leedahay wiilkuna intaas oo gabar marka waxaad arkaysaa rag waaba rage gabar la leeyahay 2,000 oo saaxiib bay haysataa 2,000 oo saaxiib bay leedahay marka gabadha 2,000 oo saaxiib iyo 3,000 oo saaxiib leh oo
oo hadirba ku idmay noocaas ah hadee xaalkeeda iyo xukun kale bay yeelaysaa intaasna kuwa 10 kunna waa la sheegaya gabdho 10 kun oo saaxiib leh oo qodobka saddexaad qofku markuu khayr yar soo geliyo hal xadiis hadduu soo geliyo inta kaa go-aysaa ka daran waxaa la yidhi waxaa la fiirsadaa iimaali io code waad fiican tahay dheh ha waad fiican tahay your like waad fiican tahay dheh cabis noocaas waa ka jira oo camalkii ikhlaaskiisii baa meesha ka baxaya qof kasta mid baa iisoo galay wuxuu yidhi waad fiican tahay dheh buu yidhi waad fiican tahay maxaa la yidhahdaa markaasuu yidhi like isar maba aqaanaa in si like loo saaro khayr allah ku siiyo mid waliba wadaadu ahaa horta arrimahaasoo dhan waa jiraan waxaa kala yidhahda waxyaabo kaloo badan sheekh waxbuu ka dhawaajiyay sawirkaaga hasaaran buu yidhi laftigiisu warba soo gaargaaray gabdho oo meelahaas ka keena googlaha gabar qurux badan saarta iyaduna calaa kulli xaal hadda waxyaaba kala geli mayno laakiin intaas waan ku dar lahaa asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu ka information ahaan walaalaha muslimiinta ah haddana waxaa soo weeraray niman gaale la yidhaahdo oo rag iyo dumarba iskugu jira oo balaayadaas ku faafinaya ilaahay shirkiisa haynaga qabto asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu waa idin salaamahaya dhammaan walaalaha iyo culummada iyo ahlu khayrka asalaamu calaykum جزاك الله خيرا الله سبحانه وتعالى كحفدي شيخنا في waan ka gudbaynaa qodobkaas alla subxaana watacaala xifdi walaalaha dhammaan waxay leedahay walaashaan ila talidaan walaashaan waxay leedahay assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu sheekha iyo adiga sheekhda iyo adiga waa idin salaam bay leedahay walaal waa kaa qaadnay walaal waxa aan rabaa inaan sheekhu ila taliya bay leedahay tala iga siiyo waxay leedahay saygayga ayaa isaga xaajigayga bay leedahay ayaa isaga oo iqaba ayaa aniga waxaan noqday qof xoogaa diinta ay ku yar diinta marka horeeto ay ku yar tahay markii dambe waxay leedahay anna markaan isguursanay kadib diintii ayaan ku wanaagsanaaday dhanka diinta ayaan u jeestay qur'aanka ayaan bartay waxaan xidhay jalbaabka ayaan xirtay jalbaabib waaweyn ah waxa uu ninkayga igu sameeyey in uu meel ila marin oosan waddo ii raacin oosan meel ila marin bay arrinkaasi ii sheeg walaashu sheegaysaa wuxuu ninkaygu igu sameeyey bay leedahay intaasi kadib qof weyn ayaad u eg tahay qaababkaaga marka aad socotid waa buuran tahay camal ama wuu ku weyneeyey ama shuluq buu kaa dhigay waxyaabahaasi buu igu leeyahay bay tiri sidoo kaleeto waxay tiri hadda wuxuu oo bartay gabar kaleeto ayadana ii sheeg dhar yaryar wadato surweelka iyo waxyaabaha sidaas ah marka gabadhii gurigeedaba mar walbeeto markuu shaqada kasoo baxa buu aadaa aniga iima imaado maadaama mar walbeeto kitaabkii iyo diintii aan la fadhiisto mar walbeetana ataqwa ay ii shidan tahay bay leedahay waxa intaas kaleeto ay ku dartay walaashu wuxuu oo bilaabay sigaarka afkiisa baan habeen sigaar kasoo uriyey marka wuxuu igu yidhi macaba ugu inkiray balse inuu cabayo afkiisaba iiga soo urtay bay leedahay sidoo kaleeto gabadhii arrimaheeda marka aan weydiiyey afar baa ilaahay kuu baneeyey walba ma qabtaa maya habeenkii marmar buu ay sheeg kusoo daahayaa sidoo kaleeto wuxuu iiga sheekeeyey waxa iiga sheekeeyey inuu shumiyey iyo waxyaabo sidaas la mid ah bay leedahay walaashu hadalka meeshaas inaan ka daboolo baa wanaagsan anigu iskuma furo bay leedahay arrinkaasi laakiin aniga hadda asaga kuma faraxsanin ninkaas ahaan maadaama ii sheeg arrinkeenu sidaasi uu yahay waxa aan jeclaa lahay inay shuyuukhda ila taliyaan maxaan ka sameeyaa ninkaasi inay ila taliyaan baan jeclaa lahay sheekh xasan ibraahim ciise baan siinahayaa insha allahu tacaala falyatafadal sheekh xasan ibraahim ciise بسم الله الرحمن الرحيم horta waxaad martay waddo xun waxaa la rabay hadalladaas aa wada tilmaantay oo dhan waxaa tiri gabar gurigeedu tagaa yaa kuusoo sheegaba imaanaysa waa koow ma adaa soo arkay waaye xaggee degan tahay gabadha shaqada markuu ka yimaado kasoo baxahayay ma soo raacday oo intaa gabarta gurigeeda uu galo ma daba socotay horta arrimooyinkaasoo dhan waxay u baahan yihiin ogaasho waa koow gabadha waxaa iska jira iska meel banaanka iskaga maseero oo iyadoo waxba jirinba waa labo teeda kale xijaabka gabarta qaadata nimanka waxay ka jecel yihiin malaha qur-aan markay akrisanayso waa lamid ninka ciyaal suuqa ah hadda mar gabarka dugsiyada qur-aanka macallimiinta waxay dhahaan nin baa noo imaanaya ciyaal suuqa wuxuu leeyahay gabar xaafidad ah oo qur-aanka taqaano oo xijaab wadata yaa u baahnaan lahayn waa kuwii kale iska dhaaf qof caaqil ahoo wax ahludiin ahoo wax noocaas oo kale ah taasi waa midda kale sigaar baa tilmaantay sigaar afkiisa kasoo uray
wax qofka lagu qabsado ma aha. dariishadaha qaarkood way iska soo galaan, qof asoo meesha iska soo maraya sigaar intuu soo cabo gurigaaga daaqadiisa iyo dariishadiisa waxbaa soo galgala. waxaan kugula talin lahaa waxyaabo fara badan horta ka fiirsa. kow, qof weyn baad u eg tahay, jid ma kula maraayo, dad laftigeeda waxay u baahan tahay ka fiirsi kale. marka arrimooyinkaas oo dhan waxaa loo baahanya insha allahu tacaala in qofka uu ka fiirsado. maradan inay weyn tahay wuu dareemayaa, adigiina wuu ku arkayba, guriga adoo jooga ayuu ku arkay inaad weyn tahay iyo inaad yar tahay. weynaan haddaad weyn tahayna asaa kugu qabo uu kugu rabaa, haddaad yar tahayna saas oo kale. marka insha allahu tacaala hadday jirta gabadhaas aad sheegaysidna tartan la gal ayay kaa badinin. haddaadaad qayle iyo saanaad tahay iyo sigaara cabtaa iyo waxaa soo bilowda oo taasna mar alaar markuu u tag ay soo dhawayso hadal fiican ay dhahdo waa lagaa badinayaa. marka insha allah waxaan kuu dardaarmayaa ilaahay kitaabkiisa qabso, in badan cudubilayso, wax badan tasbiixda ku dadaal, wax badan ilaahay isku xir subxaana watacaala. wixii khayrkaagaa ma gafaysid. wax walba waxay ka fiican yihiinna dheh, wax walba waxay ka xun yihiinna ka ilaali. waa la milkistaa, waa la soo jiitaa, waa la qabsadaa. saas darteed ayaa loo sameeyaa insha allahu tacaala. shalay diinta waa igu yareed baati, laakiin ilaahay baa ii beliya, isagana saas oo kale noqon doonaa insha allahu tacaala. marka markasta waani xaqa u sheeg, wanaaga wax badanna xooga aan ku socotid yaray oo tartiib samee insha allahu tacaala. waad gaaraysaa ta'ani min allah watacadi min ashaytaan insha allahu tacaala. nacam. جزاك الله خيرا. الله سبحانه وتعالى هاكو حفظيه الشيخ حسن إبراهيم عيسى. الله سبحانه وتعالى هاكو حفظيه. يعني waxaan filahayaa walaashaasi inay talada aad iyo aad uga bagatay sheekha taladiisa, ayna ii sheeg qaada doonto. haddaan ka gudubno walaasha kaleeto waxay leedahay assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu akhi, taladan in la ii gudbiyo maan rabaa. waxaan leeyahay bay tiri walaashay waxay leedahay walaashayna qurbaha ayaan joogaa bay leedahay, xaajigeygana qurbaha ayuu sidoo kaleeta joogaa. wuxuu yidhi isla markaas iskuma imaanayno, ilmihiina Africa ayay jiraan. ilmihii waan ka baqayaa inaan keeno qurbaha oo aan aabba ila joogin, maadaama aabihii oo qurbaha isagana gees kale ka joogo anina gees kale aan ka joogo, inaan aniga kaliya gaalada ilmihii u keeno oo hadhowti problem oo naga dhex dhaco baan ii sheeg. arrintaasi ka cabsanayaa. caruurteediina aniga hooyo waaye way jeceshahay caruurta inay la imaatay rabtaa. marka waxay leedahay arrintaasi in ii sheeg sheekhyada igala taliyaan baan rabaa. wadaadkiina wuxuu leeyahay waddan kaleeto qurbahu jooga, in qalbigiisa ilaahay iisoo dumo oo waddanka aan joogo ila imaadan ii duceeya bay leedahay. sheekhayaasha maxay tale isiinayaan? sheekh cabdiqaadir boobe falyatafadal insha allah. walaashaas waxaan leenahay wax lagu tabco nicmooyinka ilaahay subxaana watacaala bini aadamka ugu deeqo waxaa ugu muhiimsan awlaadda. marka laga tago islaamka ama iimaanka alle subxaana watacaala uu ku hibeeyey ee qalbigaaga uu geliyey. nabigeenuna wuxuu leeyahay subxaana watacaala awlaadukum hibatullah, awlaadiinu waa hibo iyo deeq ilaahay idinku deeqay. awlaadaada sabab ha u noqonin, si kasta oo qalbiga hooyonimo iyo naxariis iyo caadifadi ay ugu jirto, inaad dhul gaala geyso sabab ha u noqonin. ha kuu barbaareen, bayco nadiifa ha kugu barbaareen, tarbiyada islaamka ha kuu qaateen, xaqaaga wakti ay garan karaan yani ha gaadheen. wadaadka oo jooga qurbaha aada wada joogtaan laakiin aan kula joogin, waani oo inaad isu timaadaan yani diyaarso. maxaa yeelay nebigu salawaatu ullahi wasalaamu caleyh dumarka markuu tilmaamayo caqligooda waxaa lagu tilmaamay caqli daro. haddana nebigu gees kaluu ka ammaano wuxuu yihi mid kastoo caqli leh, nin kastoo caqli u saaxiiba iyagaa bedela. ka diyaarso, sibaati ka diyaarso inuu kuu yimaado. adduunyo waa la helaa, laakiin waxaa ka qiimo badan walaalow adduunyada aada noogu maqan tahay inaan wada noolaano, wax qaybsanno. risiqeenna ilaahay baa qoray, wamaa min daabatin fi lardi ilaa cala allahi risquha. qodobka saddexaad,
caadifada kale aad kusoo jeedin karta waxa weeye ilmaha inaad xusuusiso mas-uul inuu ka yahay ilaahay oo kala xisaabtamayo adiga iyo isaguba inaad u baahan tihiin inaad ilmihii aad dar yeeshaan oo meesha ilmuhu joogo marka aad tagtaan qodobka afraad haddee isaguna waa bini aadam ilaahay subxaana wa tacaala uu ku abuuray yani markaa waxa adiga kugu abuurane inaad waanooyinka iyo nasiixooyinka gaadhsiiso oo barnaamijkaasi marnaba aanu sababin yani guriga iyo mustaqbalkiina inuu burburiyo ayaa loo baahan yahay jasaakum allahu khayran جزاك الله خيرا وجزاك شيخنا الشيخ عبد القادر بوبي الله سبحانه وتعالى هكو حفظي شيخنا قاليga ah waxaan filahayaa walaashaas inay aad iyo aad uga bagatay inay talooyinkaasi iyo qodobadaasi ay ku dhaqmi doonto insha Allah taala ayna wax ku darsan doonto Allah subhanahu wa ta'ala dhamaan xifdi walaalaha wuxuu leeyahay walaalkaani kaleeta assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatuh yaraan saaxiibnahay baa waxaa dhibay sigaarka buu leeyahay markasta inuu ka toobad keeno dembigaasi rabaa wuuna ku noqdaa bay leedahay marka toobadiisa sidee toobad nasuuxa ay ku noqon kartaa maadaama uu ku noqonahay bay leedahay ku noqonahay walaalkaasi Allah subxaanahu wa tacaala shayuukhda ha xifdii buu leeyahay walaalku arrinkaasi in lagala taliyo uu rabaa talo weyna dhegeysanayaan waa iskaabul guriga isla joogaan marka Sheekh Xasan Ibraahim Ciise baan u dhiibahayaa تفضل شيخ حسن إبراهيم عيسى توبة نصوحة وحوكو هيلي كرا حدي مر وكتوبة كيانو إنو قوانك قالو شروطه توبة اللي يماد انت سدو اللي يماد إن شاء الله توبة دي سواء توبة نصوحة محاقوه هرايا إنو فراها كلبحو محاكو حيقة ندامو إنو كقوام مرمي محاكو حيقة إنو بسطة إنو مركا لأقول نقوني انت هدولي ماذا إن شاء الله تعالى توبديسو صحيحي مركا نقونيسا إن شاء الله سي مركا تلقى ويساقا دافي كرا ويساقا دافي كرا هورت إنو سن أدوانين دادكي عبي جيري أما خف سيجار عبي أكتيسي هادي داد قوري إيكولاد دقين سيجار عبي إنو كقورو كو طلبات بوس كي سيجار كو كعبي جيري إنو حيابك لكو بدشتا لوسكا لكو بدلا سيسنتا لكو بدشتا وحالا صوقتها وحيابا أمتقانا لسكو ما ويديو waxaana lahayn dambina aan markaa lahayn booskii baakada sigaarka ah inta baakad la soo qaato ama warqad loosa lagu soo shubaa oo mtaqaana ama wax noocaas oo kale ah jeebka la gashtaa waqtigay ku qabato meesha aad la soo bixi jirtay sigaarkii iyo waxa la soo baxaa looskii nacnaci wixii markaa la mid ah marka waxyaabahaas waxyaabaha ugu fiican insha Allah taala in bedel la helo ila maskaxda inay hilmaanto waqti dheer ay qaadanaysaa marka waa in wax bedel la helo insha Allah taala سامر كاستمع إن شاء الله نعم جزاك الله خيرا وجزاك شيخنا الشيخ حسن إبراهيم عيسى الله سبحانه وتعالى هكو حفظي ميزانك قيامنا هكو سارو walaalkaasi inuu aad iyo aad u fahmi baan filahayaa arrinkaasi oona ka toobad keeni doono annaga dhammaanteen oo u wada duceynayna waxaan leenahay Allah subxaanahu wa tacaala ha kaa jaro geedkaasi qiicaasi afka laga shidahayo waa qiic xun weli xitaa baakada afkiisa hore waxaa ku taallay ii sheeg waa dhimasho sigaarku baa ku taallo qofkii cabo wuu arki karaa ama ii sheeg qof walbeeto oo wax akhriya wuu fahmi karaa marka insha allahu tacaala dhimasho gacantaada ha ku sababsan hana ku raadsanid lacagtaadana ha ku gadan baan ku leenahay haddaan ka gudubno walaashaani waxay leedahay waxaan rabaa in la ila taliyo sheekh ila tali meel ayaan ka shaqayn jiray shaqadii waan ku dhibtooday xagga diinta iyo xagga bini'aadannimo sheekh waxaan ku fakeray inaan dacweeyo shaqada ila tali sheekh ma dacweeyaa mise ilaahay ayaan ku dhaafaa sheekh maadaama ii sheeg mararka qaar ii sheeg jilbaabkeeda way wax ka sheegi jireen nasalaan bay leeyihiin waxay leeyihiin ii sheeg waxaa tahay argagixisa baa tahay hadalla noocayaas camal bay dhahaan mararka qaar aad iyo aad baan ugu dhibtooda bay leedahay arrintaasi inaan dacweeyey in kaleeto bal ila tali bay leedahay sheekh ina duceeyey insha allahu tacaala sheekh cabdiqaadir booba baan u dhiibahayaa sheekh cabdiqaadir booba falay tafadal insha allah lagu dhibayo diinteeda lagu dhibayo inay sabirto waa loo baahan yahay maxaa yeelay waa dariiqii ambiyada jidkan ma aha jid saafiya oo furaash iyo joodariyo lagu goglayo iyo ruumi laakiin qodox badan baa ku xeeran inamaa yuwaffa saabiruuna ajrahum bigayri xisaab
waxaa lagu dhibaya hadday diintaada tahay diintaada ku sabir xijaabkaaga lagu ceebeynayo ama shaqada haddii yani haddii ilaahay ku ron yahay ay kugu dhib badnaato diintaadiina aada u adkaysan weydo adduunka iyo diinta waxaa qiimo badan diinta nabigeena ducooyinkiisa waxaa ka mid ahaa allahuma laa tajcal iddunya akbara hamina walaa mablaqa cilmina ilaahay oo adduunyada ha ka yeelin hamigayaga midda ugu weyn iyo cilmigayaga midda ugu xeesha dheer saa darteed adduunyada iyo diintaada hadday kuu noqoto diintaada badbaadso ma dacweeyaa qolyaha shaqada haddaad dacwo wax ku helayso oo muxuu ahaa inaad dacweyso aada wax ku helayso xuquuqna aad kaga soo dhacsanayso haa haddayse arrintu tahay eelka kii dhigay oo ergootoy ruuxuu isagu ku dhibayay cadaaladii iyo xukunkii iyo sharcigii uu joogo waxba ha dacweynin natiijana kaaga ratibi mayso ilaahay dartiina uga tag man taraka lilaahi shay-an ciwadahu allahu khayran minhu ruuxii ilaahay dartii shay uga taga wax ka khayr badan baa ilaahay ugu bedela hadday maxkamadda qofka garsoorka ka ay uba yahay dad aan cadaalad lagu tuhmayn dacwada aada u dacwooto iyo kamberiga dacweyna aada dacweyso macno badan ma samaynayso xoolana lagugu xukumi maayo haddii ilaahay kuu ron yahay oo sumcadaadii ma soo celinayaan oo xoola kugu xukumi maayaan marka jazaakum allahu khayran asalaamu calaykum جزاك الله خيرا الله سبحانه وتعالى هاكو حفظيو ميزانك قيامنا كو صار شيخنا waxaan filahayaa walaalkaas ina aad iyo aad uga bagtay arintaasi haddii aan ka gudubno walaashani kale waxay leedahay assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu sheekhyada aad iyo aad baan u salaamahayaa iyo adigaba walaal waan ka qaadnay dhammaanteen waan ka wada qaadnay soo dhawow baan ku leenahay waxay leedahay walaashu wiil baa muddo isla soconaa muddo dheer waqti dheer baan isla waxay leedahay in la balkaadi nin ayaan la sheekaysan jiray waqti dheer ma la soconin ninka ana ma rabo see iskaga reebaa teelka haddaan ka bedesho dembi muu iga imaanayaa haddaan dhaho diyaar ma uu ihi mahadsanid bay leedahay walaashaasi in arrintaasi la igala taliya baan rabaa walaashaas waxaan filahayaa taliyadeeda inay ula jeedo ninkaasi ma rabto teelka inay ka bedelato bay rabtaa marka sheekh xasan ibraahim ciise baan dhiibahaya falyatafadal sheekh xasan ibraahim ciise hal mar igu celi akhi sheekh xasan ibraahim ciise Allah subxaanahu wa tacaala ku xigdiy walaashu waxay leedahay assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu in la ila taliya ayaan rabaa nin ayaan la sheekaysan jiray waqti dheer waxay leedahay mana la soconin ninka mana la soconin ana ma rabo see iskaga reebaa teelka haddaan ka bedesho ma dembiya iga imaanayo haddii aan dhaho diyaar ma uu yahay arrinkaasi meesha waxaa ku cad inay la sheekaysan jirtay marka horeeto marka falyatafadal insha allah la tali walaashaas بسم الله الرحمن الرحيم habeen dambe uga soo haraysa markuu ku yimaado waxaa u dirtaa wax culus marka hore macnaha dharka hadda yimid ka ugu qaalisan adaa taqaanid kaafii soo gadartay markuu keeno maalinta ku xigta haddana dahab oo intaas ah maalinta ku sii xigta haddana ma hore tagu leeyahay habaar heshadaan marka dambe uu ka tagay insha Allah taas waa isaga reebi kartaa ku talabaad waxaa isaga celin kartaa horta ragga sidooda buuxaya Soomaalida rag walba kugu bartuu kugu dilaa haddaa numberka bedelatid xataa kaaga wuu soo helayaa dhinac haddaa ka baxa dhinac kale lagugu imaanayaa taas waa midda labaad horta marka hore isku day si cadaan ah waxaa dhici karta qofkaan kaa heraynin horad wax uga cuntay taas waa macquul marka si cadaana ugu sheeg hadduu si cadaan kaaga haro waa sidii la rabay waayirta kuma tagee wuxuu ku tagaa la tusaa marka tii hadda aan ku sameynayna waad sheegaysaa insha allahu tacaala wixii dhan hadduu kasoo baxo oo wixii dhan uu keeno haddana arooskiga loo gudbayaa waxba waxay kasii qatarsan tahay waxba waxay kasii weyn waxaan rabaa in oo arooskayga laga dhigo Hilton wax uu iska sheegay waxaan rabaa hooyadeeda meesha joogta in waxaan rabaa in saas marka dambe uu ka haraya insha allahu tacaala nacam
جزاك الله خيرا الله سبحانه وتعالى هكذا ميزانك قيامنا كوسار شيخنا waxaan filayaa arrinkaas inay ka bagto walaashan waxay jirto sidoo kale walaashan waxay leedahay in leela taliyo barba akhi waxaa jirto bay leedahay gabar walaashayda ah bay leedahay in arrintan in laga la taliyo waxay leedahay in la qolo ayaa oo laga yareeyo naasaha sababta ay wadnaheeda ayaa jidmahayo culays ayaynu ku hayaan bay leedahay marka diinta maxay ka qabtaa qofkii iska yareeyo naasaha ama weyneysto meeshaas marka waxaa ka cad walaashani inay talo u baahan tahay iisheeg ama iisheeg wax inay jiraan marka sheekh cabdiqaadir booba ayaan u dhiibahayaa arrinkaasi sheekh cabdiqaadir booba fali tafadal insha allahu tacaala xoogaa muxuu ahaa reer magaalnimada waa lagu kala fiican yahay marka dayib qaab loo yarayn karo anagu wax aan fahmi karno maaha laakiin maqaasid bay shareecadu ka hadashaay ujeedada loo yaraynayo hadday tahay wadnaha ayaa dhibi kaga imanaysa ma garanayo si ay dhibi uga iman karto xubnahan ilaahay baa ku abuuray meesha jidhkana rabbi subxaana wa tacaala waa isu dheelitiray tusaale jidhkaagu wuxuu qaadi karaa lafahaagu waxay qaadi karaan jidhkaagu intuu leegyahay hadaad cayilan tahay hadaad shilis tahay hadaad caato tahay maatay reer koonfurka oran jireen maxay ahayd waxaa jira gaabo waa jira laakiin dhuubow ma jiro haddaanse maqaasida shareecada ka raacno haddii dhakhaatiir ay xaqiijiyaan wadnaha inay culays ku hayso asbaab dhakhtarna ay jirto wixii sharcigu uu ogol yahay haddii ilaahay ku ron yahay waa lagu ogol yahay laakiin xubnahaagii in la yareeyo ama wax lagu bedelo waxaan hadda anagu yani dadka aan fari karno ma ah waxaan ka baqaynaa inaan soo galno fala yuqayirunna khalqa allah waxay doorinayaan ilaahay subxaana wa tacaala abuurkiisa adigoo caafimaad qaba inaad weynaysato ama aad xubnihii bedeshana waa fala yuqayirunna khalqa allah khalqiga ilaahay bay doorinayaan marka yani masaladaas taladeedu waxa weeye ka fogow intaad ka fogaan karto ilaahayna tala saaro wixii dawo ah ee maxaa caafimaad ahaanna aada isticmaali kartaan isticmaala laakiin shardi waxaa ku xidhan dawada la isticmaalaya inaanay xaaraan ahayn qaabka loo isticmaalaya inaanay xaaraan ahayn nabigeenu wuxuu leeyahy tadaawu walaa tatadaawu bixaraamin isdaaweeya laakiin shay xaaraan ah isku daweynina intaas baan kaga baxaya qoladii hore ee gabadhii hore lahayd wiilkaan iska caydhinay ee taleefonka ma ka bedeshaa baa waxaan leeyahay taleefonka ha ka bedelanin wiilka dayib warcad u sheego haddaadan rabin oo qanaacada aadan ku qancin waxaad tidhaahdaa kuguma qancin beenna ha sheegin teeda kale hadalkeeda waxaa ka muuqanayay muddaanu sheekaysan jirnay laakiin anigu kuma qancin muddadii haddaad sheekaysan jirteen oo adigu barnaamij aada u bilowday guurna aada ku heshiiseen guurkii ha kaga bixin aanu jirin sharciga inuu ku gafay oo meel kaga dhacay ama diin ahaan aada saluugtay haddaad diin ahaan saluugtay waad kaga bixi kartaa ballanta si cadna waad ugu sheegi kartaa haddaadan ruuxa diin iyo dabci toonna aadan ku saluugin ha kaga bixin ballanta ee ballanta ilaali shuruudda kalena jooji
inuu ka baxay baan filahaya alla subxaanahu watacaala ha xifdiyo sheekheena misaalkiisa camal ha inoo badiyo sheekhda caawa inoogu sheeg inoogu casumo waa sheekh xasan ibraahim ciise iyo sheekh cabdiqaadir boobe waxaad nagala socotaan qolka islaamic attaqwa network cidii oo sheega barnaamijkan waxa ay kaga baga doonaan ama ay dib ay ka daalaca doonaan bagga aan ku leenahay internetka somaliislamic.net alla subxaanahu watacaala dhammaan walaalaha kasoo qayb galay ama ka qayb qaadanahayo alla subxaanahu watacaala xifdiyo barnaamijkan alaaba waxaan ugu talagalnay dadka walaalaha ee qurbaha joogo ee qof ee la tashtaan la inay shuyuukhdooda ay la tashtaan qaab diiniyan iyo qaab caqliyan intaba barnaamijkani halahaas baan kaga talagalnay qof walbeetana ra'yigiisa ama ii sheeg talada oo maskaxdiisa ku guracan intuu qof kaleeto oo shaydaan ah la tasha lahay dadka ahlu diinka iyo dadka culummada inuu la tashto ayaan ugu talagalnay alla subxaanahu watacaala dhammaantiin idin xuduudiyo soo wada dhawaada insha allah walaashani waxay ay leedahay waxay leedahay walaashaan assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu gabar walaalaha ka mid ah ayaa iisoo dhiibtay bay leedahay taladaani u gudbi fadlan waxa ay rabtaa caruur aabahood oo ay ka kala tageen inay ka dhaadhiciso inay wadan islaam geyso maxaad kula talin laheedeen arrinkaas maadaama wadanka ay joogto wadan qurbaha ay gaala ay yihiin sheekh xasan ibraahim ciise falyatafadal insha allah عبد اللطيف عفوا أخي الله والشيخ كلا أملينا يقصوا عليها المرة dhib ma lahan insha allahu tacaala walaashaan waxay ay leedahay waxaan u baahanahay ii sheeg caruurteedan waxaan rabaa caruurteeda inay geysay rabtaa wadan islaam bay rabtaa inay geyso laakiin waxay kala tashanaysaa ninkeeda may kala tashanaysaa camal sida aniga qoraalka walaasha aan u arko ninkeedii horeeto isfureen miyay kala tashanaysaa inay caruurta ee wadanka islaamka ay geyso marka waxay leedahay arrinkaas in la igala taliya baan rabaa maadaama caruurta ayada kaligeedisa dhalin nin oo la dhalay marka jazaaka allahu khayran falyatafadal وقصب إن لا تشتت إن شاء الله تعالى إلى علمي وحكستا أخبعي كرا وحكستا إيمان كرا هفورو أساقع علي هدي لغو فوري حتى أساقع علي مرك علمي هو وذيا إن حقيقي يا رضا وسود دعي ما يموذي كرتت هدي لغو رضا طلع ميل إسلا دقا سيد إلهي تلما وأتمروا بمعروف سي معروف وقال تشتا هذا كلا انت بدنا اسكا مقلنا ودن اسلام انجينا علمية dhinac ba loo jiijiidad arkaysaa kuwii shalay wadan islaam la geeyey waa laga soo waday meel kale la geeyey waa laga sii waday meeshoodii lagu celiyay kuwa kala soo baxay Soomaalida tiiga iskaga jirtaa baryahan ilma la jiideed arkaysaa quraanka dhan ay dhameen rabaan waa la sii waday xagga la geeyey waa la soo celiyay wax hadda soo baxay oo si rasmi ah u degay waa hal iyo labo oo dhif iyo naadir marka idinkana dhibaato badan ha isgelinina meesha hadii mar ilaahay idin geeyay subxaanahu wa ta'ala bal isaga dadaala waditaan iyo inta la geeyay iyo waxa dhaanta xataa qofka in aad loogu dadaalo oo meesha uu joogo aad lagu la dadaalo hadii la soo guurayna go'aan rasmi lagu soo guuro marka tiiha iyo waxyaabaha lagu jirana aad aan laga fiirsan insha Allah ta'ala maaga intay ilmeeda soo wadato waxay keenaysaa Masar to kale waxay leedahay ilmihi Masar ee jooga quraanku iyo dhameerada waa la soo aadaa tiyo lagu soo deego waa sii baxday ayadana waxay aadayba Suuriya hadana to kala soo waxa Suuriya joogta kuwii waa la soo baxay may Ethiopia fiican may Hargeysa fiican macnaha ciyaalkii oo dhan jahwareer iyo dhibaato iyo waxa haysta saadar waxaad arkaysaa ayaa inta loo sii wada diyaar leh sidii loo saaray diyaar leh u saarnaayeen wax hadda u fahmay iyo wax u faa'iideynaysa markaa jirin marka ilaahay aad loo tala saarto insha Allah ta'ala marka hore meesha aad joogtidba ku talagal inaad tarbiyada ku wanaajisid ina ku dadaashid ina xooga ku saartid meel geesmada waxa arkaysaa hadda ciyaal inta meedama muslimiinta la geeyay qaar kale oo meesha lagu dhaafin quraanka dhameeyeen ka akhlaaq fiican yihiin ilaahay subxaanahu wa ta'ala waafajiyay kuwii la soo wadayna ay halaabeenba sigaar cabdi waxyaabo kale ay bilaabeen wax waa suuragal ciyaalka aad loo duceeyo waxa ilaahay hagaajisna subxaanahu wa ta'ala marka waxaan kula talinaynaa balla tasho aabihii dhalay taas waa laga maarmaan insha Allah ta'ala nacam Sheekh Xasan Ibraahim Ciise Allah subhanahu wa ta'ala ha ku xifdiyo miisaanka qiyaamaha ku saaro sida walaasha oo la talisay sidoo kale wiilkan baa wuxuu leeyahay assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu in layla taliya baan u baahanahay buu leeyahay waxaan salaamayaa marka hore Sheekh Cabdiqaadir Boobe iyo Sheekh Xasan Ibraahim Ciise wuxuu leeyahay waxaan doontay baan doontay gabadhii aabaheed iyo familkeedina horay nin ayay ugu ballan qaadeen ani iyo gabadhana muddo ayaan wada sheekaysanaynay oon wada soconaa oo
MSS iyo waxaan ku wada xiriirnay iyo howlo badan iyo Facebookyada dhankaas belada aalada internetka waan ku wada xiriirnaa marka aan doontay waxa lagu yiri gabadhii ii sheeg waa sidaas gabadhiina arrintii way ka biyadiidsan tahay anigana waa ka biyadiidsanahay waa israbnaa marka wuxuu leeyahay fursadda ama jaaniska inoo banaan maadaama qalbiyadeena mid yihiin aan israbno midaas waalidkaas sideen uga daba tagnaa sheekhyada xeeladaha keenan sheekh Cabduqaadir Boobe baan u dhiibaya insha Allah taala sheekh Cabduqaadir Boobe walaalahaas talabay ka rabaan Allah subhanahu wa ta'ala ku xifdiyay fali tafadal waa israbnaa oo muddan wada xiriirinay gabadhaas waalidkeedna waa isukaya diidan yahay xeeladaan idiin sheegaya waxa weeye gabadhu ha furfurto waalidkeed dad qanaaco diineed isku qanacsan tihiin qoys inaad dhisataanna aad doonaysaan gabadhu albaabka ha furto ilaahi wuxuu leeyahy subxaanahu watacaala wa'tu lbuyuuta min abwaabiha aabaheed iyo waalidkeed kalsoonideeda ha raadiso ha kasbato aabe anigu qofka aad siinaysaan diyaar uma ihi laakiin waxaan rabaa qofka noocaasa waxaa la odhan jiray wadaadadii hore ay odhan jireen adducaa'u liman ishtaraa ducada waxaa iskale ruuxii iibsaday ha iibsato maxaa yeelay dabeecadda basharka waxaa ka mid a ruuxa u wanaag sameeya waalidna uu yahay waalidku sidiisaba ma foga waa iska qalbi dabicsan yahay gabadha waalidkeed ha kasbato ninka ay doonaysana ha ka dhaadhiciso risaaladeeda iyo waxay wadatana ha shirgeyso haddayba iibin kari weyday gabadhaasi warkeeda iibin kari weyday waalidkeedna ka iibin kari weyday waalidkeedna kuu diiday waa isjecelnahay ma jirtee faraha ka qaad ha la kala carro gedisto lacala allaha yuxdisu bacda dalika amran laakiin waxaan ka horraysiinayaa sirtaa aan idiin sheegay gabadha waa inay waalidkeeda ay la hadasho adiguna gabadha haddaad jeceshahay iskaashada gacanta ha la furo halkaad afka ka hadlaysaan gacmaha ka hadla markaad gacanta ka hadashaan adiga gabadha wax isku darsada waa sir aan idin dhashaye markaad gacanta ka hadashaan waalidku waa idin go-aankii hore uu gaadhayna wuu ka laaban wuxuuna idin waafaqi biidni illaahi tacaala haddiise waalidku uu ku adkaysto gacanta idinkoo ka hadlayna aad kari weydaan haddee waxa weeye gabadhaas iyada keligeed ilaahay subxaana wa tacaala gabdhaha kama yeelin gabdhuhu waa badan yihiin gabadh aan qoyskeeda kula rabinna waxba kuu tari mayso haddii xataa lagu guuriyo gabadh ilmahaagu wuxuu ka go-ayaa waalidkii ayeydii yacni awowgii ayuu ka go-ayaa marka ilmo dhego-an dankuuma aha insha allahu tacaala sirtaas halkaa qodob baan idinkula talin jazakum allahu khayran cabdiladiif waa insha allahu tacaala qaybta dambe insha allahu tacaala sheekh xasan baa khatimi doona jazakum allahu khayran waa idin maca salaameynaya asalaamu allah calaykum جزاك الله خيرا الله سبحانه وتعالى هاكو حفظي الشيخ عبد القادر بوبي الله سبحانه وتعالى ميزانك قيامه كو صار الشيخين قاليغا مدة ديرنا وين لا جوجتي ii sheeg muxaadarana waa inoo gasho ka hor intaada barnaamijkan soo gelin marka Allah subhanahu wa ta'ala ha ku xifdiyo waan ku fasaxnay insha Allah ta'ala Allah subhanahu wa ta'ala miisaanka qiyaamaha ku saar sheekheena waan ka gudbeynaa insha Allah ila talada ku xigta ayaan u gudbeynaa walaalaha insha Allah waxay leedahay walaashaan waxay leedahay waalidka wuxuu igu daray nin iga weyn 30 sano ayaa la igu daray marka aad baan ugu dhibtooday waan ka soo carooday hadda gurigeyga ayaan joogaa sheekhyada waxa aan weydiinayaa ma dambi baa igu sugan haddii aanan dib ugu noqonin maadaama aanan ku qanacsanayn waxaanan kaliya isla nooleen 14 maalmood marka waxay leedahay walaashaasi sheekh maxaan sameeyaa bay leedahay jazakum allahu khayran sheekh xasan ibraahim ciise fali tafadal insha Allah bismillahi rahmaani rahiim inkastoo wixii aad ku nacday aadan sheegin haddana tala ahaan inaad ku noqoto kugula talin lahaa waa dhalinyarada hadda joogta waa laga sheegtaa inta badan Soomaaliya waxay ku maahmaadaan ninka weyna ku dhaqa sidii gabadhaadoo kale sidii gabadh asaga uu dhalay oo kale iyo kula mucaamaloonaya
wuu kula mucaamaloonayaa. waa dhici kartaa gabdhaha ku imaada saaxiibada le ninkaa maa ku qaaba nin weyn waa in lagu dhadhaho, laakiin dheg ha u dhigin insha allahu tacaala. habeenkii ninka weyn asagoo wax wada loo imaanaa, asagoo bac wado imaanaa, asagoo waxuu imaanaa. kii yariiska soo maaha, asagoo sigaar cabooye, asagoo mataqaanaa kaasoo daahaya, asagoo marka mashaakil badan buu leeyahay. marka tala ahaan ha diidin, walow wixii dhib oo jira waa mawduuc kale. haddii aad noo sheegi lahayd way fiicnaan lahayd, haddaad si qaasi noogu sheegtidna way kasii fiican tahay. markaa talan baa lagaa siin karaa. laakiin haddii wax kale weynaan keliya ay tahay, waxaa waaye wax dhibaata ma laha insha allahu tacaala. caaisha 9 sanay jirtay rasuulku markuu guursanayay sal allahu alayhi wasalam, waa la dareemi karaa. marka arrimooyinkaas oo dhan way jiraan insha allahu tacaala. marka ilaahi subxaana watacaala ha ku waafajiyo, awlaad khayr qabtan allah kaa siiyo. ilaahi subxaana watacaala ha isku kiin dhaqo. aadaa kugu ducaynaa. hooyadaa aabbahaana ha murjinin, bal iska laabo, gurigaaga ku laabo. ninka weyn markaad wax weydiisato isla marka wuu ku siinaa. marka saam waa dhibaysaa aad dhahdo wuu kaa ogolaana, ilaan waxbuu fahamsan yahay, wax badan buu yaqaanaa. laakiin ku oo dharbaaxo iyo haraati iyo feer iyo dhib iyo mashaakilii kugu haaya, saasay gabdho inta badan jecel yihiin. marka insha allah talada saasaan ku siin lahaa hadii ilaa yidhahda. nacam. جزاك الله خيرا. الله سبحانه وتعالى ha ku xifdiyo sheekh xasan ibraahim ciise. alla subxaana watacaala miisaanka qiyaamaha ku saaro. waxaan filahayaa in ii sheeg weli barnaamijka oo far ooska qodnayn, walaalahana ii sheeg talooyin badan ay soo dirsanayaan. insha allahu tacaala dhammaantiin way idinla tali doonaa sheekh xasan ibraahim ciise oo inoo jooga hadda insha allahu tacaala, iyo sheekh cabdiqaadir boobo oo inaga tegay. alla subxaana watacaala isagana ha xifdiyo. haddii aan ka gudubno ila talidaasi, mid kaleeto ayaa waxay leedahay walaashani, assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu. waxa aan ku noolahay wadamada qurbaha ayaan ku noolahay, waxa aan guursaday 5 nin ayay leedahay walaashani. waxaa ka mid ah hal ajnabi ayaa ku jira bay leedahay. 5taasi ilaa iyo hadda mid aan ku dego ayaan la ahay. dabeecadeyda ayaa aad iila xun aniga marka aan fiirshay. hadda muddo 4 sano ah wax ma guursan bay leedahay. marka sheekhyada waxa aan weydiinayaa inay igala taliyaan arrinkani dabeecadda. midii iigu darneed ayaa ah rumuudka ayaan isku furnay bay leedahay walaashani. rumuudka ayaan isku furnay. marka ii sheeg sheekhyada inay igala tashaan baan rabaa arrintan bay leedahay walaashaasi. alla subxaanahu watacaala ha xifdiyo. waxayna leedahay hana iisoo duceeyaan walaalaha dhammaantooda. sheekh xasan ibraahim ciise falyatafadal insha allahu tacaala. bismi illahi raxmaan raxiim. waxaad samaynaysaa, waxaad raadinaysaa yaa ugu dabeecad xun horta. suuq intaa geshid ama dadka saaxiibada waxaa weydiisaa qofka ugu dabeecadda xun haday soo raadiyo. ninka ugu dabeecadda xun oo ugu dhibka badan oo asagana 5 miya 10 ama 6 naag ama soo furay, kaasaa raadinaysaa marka hore. koob markaa heshid kaas, waxaa laga yaabaa inaad aada ugu degto. laakiin intaad raadinaysid nin degan iyo nin dabeecad leh, nin dabeecad fiican, iyo waxaa laga yaabaa insaan oo aad noqotid. marka adigana insha allahu tacaala nin 6 naag ama 5 naag ama 10 naag soo furay oo dabeecadiisu ay sidaa tahay, markii labadaas ay iska hor yimaadaan waxaa kasoo baxay marka wanaag baa meeshii ka dhalanaya insha allahu tacaala. waad isfahmaysiin qofka noocaas oo kale ah. marka waxaan kugula talinayaa insha allah inaad arrintaas ku dadaashid, bal tijaabi taasna insha allah. markaad soo tijaabisid ood ku guulaysatid insha allahu tacaala, ducaan waa soo diri doontaa. haddaad ku guul dareysatana tala kale aan ku siinaynaa insha allahu tacaala. nacam. جزاك الله خيرا. الله سبحانه وتعالى ha ku xifdiyo sheekh xasan ibraahim ciise. dhanka wiilasha haddaan u jalaaco, wiilkani waxa weeye taladiisa waan ka hormarinayaa talooyinka, maadaama ii sheeg asaga si gooni ah luuqa dhowr mar oo igu soo garaacay, deg deg baa iga muuqda. wuxuu leeyahay assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu. walaal cabdiladiif, gabar baan guur ku balanay. markaan qalbigayga markaan u sheegay markaan arrintii waxay leedahay qabiilkayga markaan u sheegay buu ka wadaa meeshaas. qabiilkayga markaan u sheegay ma dhiibaan baan ahay. waa ka gudbaynaa meeshaas aan ahay. markaas bay guurkii iiga baxda bay leedahay. maxaa igula talin laheedeen adiga iyo shiikha buu leeyahay. shiikha baa kula dari doona insha allahu tacaala. anigu waan gudbinayaa un. sheekh xasan ibraahim ciise falyatafadal insha allah. bismillahi raxmaan raxiim. dadku isku mid maaha. qof kasta waxbaad maskaxdiisa ka guuxaysa.
waxaa laga yaabaa shar kaa socotayba inay tahay ha dhibsanin khayr buu kuu yahay facasa an takrahuu shay-an wahuwa khayru lakum wacasa an tuxibuu shay-an wahuwa sharu lakum wallahu yaclamu antum laa taclamuun sheegitaankii aad u sheegtay hadduu khayr kugu jir lahaa way ku farxi lahayd way fadhiisan lahayd way kusoo dhaweyn lahayd laakiin way carartay cararkii carartaa ilaahay wuxuu kaaga dhigaa inaysan khayrba kugu jirin insha allahu tacaala adaa nasiib leh haddii intay ku guursado ama aada guursatid kabacdi ilma ay ku dhasho kadibna buuqii qayla bilaaban lahaa saanaa tahay kanaa tahay balaayo iyo dib umaana way kaaga sii darnaan lahayd marka tanaa kuu fiican waa nimco waa khayr waa wanaag waa wax ilaahay kula soo doontay oo khayr badan aaya haddana tu kale u raadsa insha allahu tacaala mid ayadana waafaq ku ah oo diyaarna kula ah oo ku hambalyeynaysa oo kuu duceynaysa iyo ilahay albaabka kaaga soo gelinaya insha allahu tacaala wax weyn ha u arkin dhibaatana ha gaarsiin ayadana horteeda khayr allah u dhiga u duceey eeda laftigeeda waa walaasha wax dhigoo saas u sii weyn ha gaarsiin ilaahay idinkii marka saas unbaa samaynaysaa insha allah nacam جزاك الله خيرا الله سبحانه وتعالى هكو حفظيه الشيخ حسن إبراهيم عيسى الله سبحانه وتعالى هاينو كان حفظيه شيقينا walaalaha soo dirsanahaya ila talida aad iyo aad bay u fara badan yihiin oo luuqayga ku jiro marka raali noqda haddii qaarkiin aad iisoo geli weysaan walaalahani aan dhameeyo horta waxay leedahay walaashani assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu waxaan haystaa 2 caruuro oo yaryar wadamada gaaladana waan joogaa waxaan rabaa sidii caruurtaasi iigu hagaagi lahaayeen diinta islaamka kuna qabsadaan bay leedahay diinta islaamka marka waxa aan rabaa talo iyo ducaa intaba sheekadana ay soo gudbiyaan sheekh xasan ibraahim ciise maxaa ka leedahay walaashaasi fali tafadal insha allah ala almik ducadan ku horumarinayna ilaahay ahludiin allah kaaga dhig insha allahu tacaala ilaahay subxaana wa tacaala ha ku xafido ilaahay subxaana wa tacaala khayrka wanaagga allah ku tusiyo karabkaaga allah galo baariyaal allah kaaga dhigo adigana ku dadaal insha allah haddii aabahood joogo oo aad isqabtaan aan ka wadaa macnaha ku dadaal wax aqrintooda waxbarashadooda ilaahay subxaana wa tacaala ha kula garab galo haddii uusan aaba uusan u jooginna nin akhyaar ah oo ilaahay subxaana wa tacaala diintiisana ku fiican oo aadaabtiisana ay fiican tahay ilmihiisa oo kalena ka dhiganaya oo haddana kugu saacida waa lagama maarmaan inaad hesho marka kaas baad kala ag dhawaanaysaa markaasna waa tala kale insha allahu tacaala labadaa markaad isku darsato ilaahay idinkii khayr badan baa kaaga soo baxaya haddii sidii la rabay ay gaari waayaan xataa way soo dhadhaweynayaan insha allah marka adiga saa samey haddii weliba haddii aad usii yaryar yihiin aabahoodna aad kala tagteen aabo kaloo laga yaabo hadhow markay soo indha furtaan ay soo weynaadaan laga yaabo inay asaguna u arkaan taasaad u samaynaysaa insha allahu tacaala garabkaagana allah galo ducana waa kusoo daba dhigayna insha allah nacam جزاك الله خيرا الله سبحانه وتعالى هكو حفظيه الشيخ حسن إبراهيم عيسى ميزانك قيامنا كوسار الشيخ حسن إبراهيم عيسى ولا شان وحي لله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وحن سلامي waxaan waxay leedahay walaashan waxa aan salaamaya una mahad celinaya culumadeena iyo walaalaha isku xiraya barnaamijka salaan kadib waxaan rabaa inaan la igala taliyo arrin ku saabsan dhanka guurka waxaan jira rag badan oo ii soo bandhigay guur raggaasi ha iskugu jiraan kuwa xaaslayaal ah iyo kuwa aan horay usoo guursan balse ani ahaan raggaasi dhan niyad uma hayo waxaan u jeedaa wanaagooda ixtiraamkooda kaliya bay leedahay balse waxaa jirto hal wiil oo aan isbaranay muddo bil ah sheekaysanay balse aniga waan ka helay durbaba waan jeclaaday bay leedahay balse waxaa ka dareemay agajiid been ixtiraam la'aan iyo qadarin la'aan anigu daacad baan ku waday nafteyda asiga ayay rabtaa maxaa talo iga siinaysaan culimada bay leedahay jazakum allahu khayran allah subxaanahu watacaala ha idin xifdiye bay leedahay walaashu waxa weeye haddaan soo khulaaseeyo maadaama aan akrinayo qoraalkeeda waa fahamta umaleynaya sheekh xasan ibraahim ciise waa soo qulaysanaya waxay leedahay walaashani rag badan oo iskugu jiro rag xaaslayaala iyo rag kaleetaba ay wada damcay bay leedahay waa rag aad iyo aad i ixtiraameyn jiray waa rag isoo dhaweey jiray diintooda iyo akhlaaqdooda way fiicnaadeen balse waxay leedahay hal wiil baan ka helay oo ayaga hal bilna waa isla soconay wiilkaasi waxaan ka dareemay ixtiraam la'aan waxaan ka dareemay balan la'aan daacad ma jirto nafteedana waxa aan dareemahayaa ninkaas ilu geynahaya inay rabto
oo asaga dhankiisa ay raacayso marka culimmadu maxay igula talinayaan bay leedahay walaashaasi sidaas bay ula jeedaa falay tafadal insha allah بسم الله الرحمن الرحيم كاس لفتيجيسا راع أسيق لفتيجيسا راع مر الله لما كاس فعلت دبكيسا قيلدي iyo waayo qofka sidiisa bini aadamka ah waxba u cad wixii u cad ilaa uu soo taabto meehe macnaha ka dhaaf ama ka joog hadii la dhaho wax badan baa laga yaabaa inuu ku dhibsado talooyinka marka gobol kamid ah qofka asagoo loo jeedo waxaan in laga yaabo inuu kusoo khasaara loo diraa sababtu waxay tahay darsi buu soo qaadanaa haddii hadda aad ka celisid waa dhahdid dhaaf waxaan sameyn waxa laga yaabaa inuu ku dhaniyo ada iga reeban ada saas waxa heli lahaa ka marka intuu saa dhihin qofka marka saas oo kale ay aad iyo naftu ay u rabto meesha gidaarka loo dira qofka gidaarku soo taabta si tartiib ah uu soo noqonaya meel buu markaa fadhiisana marka intii akhyaarta ahayd oo ixtiraamka kuu haysay oo sharafta kuu haysay haddii intaas aad ka dooratay ku aan sharaf kuu haynin oo dhulka kugu jiidaay dhibkiisa iyo rafaadkiisa bal marka hore noo soo arag insha allahu tacaala soo taabo sababtu waxay tahay oo aan kugu diraynana nacayb lagu necban yahay ma aha waxaan rabnaa bal darsi inaad soo qaadato oo hadhow adiga oo maasha allah duruustaadii waxaagii oo dhan wata si hadhow dambe aadan u kadsoomin saasaan markaa kugu diraynaa insha allahu tacaala marka inta akhyaarta bal iska daa kaa dhow jiidka iyo cagajiidka iyo ixtiraam darada kugu haya waxaad dhahdaa adiga xaggaaga ahay marka kaa samey insha allahu tacaala nacam jazaaka allahu khayran allah subxaanahu watacaala ha inoo kaa xifdiyo kiisaba gaaban laakiin walaalaha way maqlahayaan xogaha inoo dheereeyay bay leeyihiin ama meegaha kusoo dhawaado stuudiyaha maadaama barnaamijka dhaxalgal uu yahay walaalo badan ay kasii faa'iidaysan doonaan allah subxaanahu watacaala ha ku xifdiyo sheekh xasan ibraahim ciise haddii aan ka gudbo taas walaalaha soo dirsanahaya aad iyo aad bay u fara badan yihiin bal midaani aan soo qabto walaashani waxa ay leedahay assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu waxaan ahay gabar soomaali ah ninkeeda uu dhibaato dhex mareen ninkeedu dhibaato ay dhex mareen 3 sano ka hor ilaa haddana aysan kulmin dhowr jeer ayuu yiri waan ku furayaa kuma rabo sidoo kale wuxuu mar walbo igu dhahaa meeshaasi hadalkaasi waa adag yahay waxa weeye sharmuuto bay leedahay hadalku u dhigtay hadal kaleeto xun bay leedahay iyo waxa aan afka soo mari karin haddaan wuxuu yiraahdaa haddana mana furin haddana wuxuu yiraahdaa markaas kadib mana furin wuxuu yiraahdaa waan dilaa haddaa nin waan ku dilayaa haddaa nin kugu arko waxaan sameeyo maxaan waxay leedahay meesha su-aal bay ka wadaa maxaan sameeyaa ileen naag ayaan ahay 3 sano ayaan sidan ku jiraa xaaraan ma doonayo ma guursan karo sheekh إلى التالي بلاد الشيخ حسن إبراهيم عيسى فليتفضل إن شاء الله تعالى الله سبحانه وتعالى هكو يبدي والله بعرف مدكوات أهل باطو بندقيسا أنا كلوا دعوة اشتكي نقني سهيل كلوا بندقيسا وتشيقيسا ولا الحضليا ولا مناجونيا ولا لا حاجونيا حدي وحفي عن كسور بحانه وكل رقم يسابيك كسور بحوايانا تلاوم بالغاغا قادي دونا ان شاء الله تعالى تاسي وامد مد لبعض صبر بانكو امرينا ان شاء الله تعالى ادفع بالتي هي احسن بولا الهي هذه حمان لغوغو سميو وناكو بدل فاذا الذي بينك وبينه عداوه كانه ولي حميم هذه قصص اقصى ميسكيش عداوه كو قبي وحو نقونيا ولي حميم وانكو فريا هاي فرين ولا لو سانا تهي مئه انت كبحثا معناها ادفع بالتي هي احسن مركز حمان غفو سمي وانا بدل بولا الله سبحانه وتعالى فاذا الذي بينك وبينه عداوه كانه ولي حميم دبك جرى ما انت نعكت وفر بعضه عابو بس صدح بلاد كمان سنيس او فرينك اشيغيسي او فرينكي او marka gabdho waxa soo baxay xaaladooda saas ay tahay naagii hore waa lagu furaatay oo 17 bir bi oo jirtay baa la yiri iga bax guriga ma baxayso waa la soo qabana waa la soo jiida albaabkii qabsanaysa inta waxa iimaan jirtay dhaqan sulxi wanaag saadarteed meeshan qof dadko dhan ma wada wanaagsana labada qofood oo dhaqdaysa qof baa lagu dhaqmaa dadkii saasay ahaayeen habkaas la idin ku soo dhalay oo idin ku soo koriyay oo meesha ku soo dhamaateen naagan dhabteeda ku oynin baa la dhahay ma dhaqantin hada saas oo kale Soomaalidu dhihi jireen marka maanta hadii la isla tirsaday
haddii dhibku batay iyo mashaakilku meesha yimid hooyooyinka hore aad bay u sabri jireen, way dulqaadan jireen, way adkaysan jireen, xataa biil lama siin jirin. habeenka ay dhasho uu imaan jiray odaygu suu u maqan yahay, canug kale caloosha galahayo suu u baxo haddana markii umusha ka baxda in loosoo sheegaad u malaysaa. habeenkaasuu imaana nyaanya iska gadan jireen, caan iska gadan jireen, ilmahooday korsan jireen. iskuulka badankeena waxaad kusoo bararteen waxay hooyo waxaana muufadii waxyaaba ay kusoo dubtay, shilinkii laydin siin jiray hooya muufa kusoo dubtay, waxaasoo dhan baa jiri jiray. marka hooyooyinka door fiican baa la rabaa inay ka ciyaaraan. saanaa lay dhahay iyo intaa lay dhahay iyo wuu i caayay iyo waxaasoo dhan inay iska dayan waa shay muhiim ah. marka insha allahu tacaala hooyooyin lagu daysado oo ilmahooda fiirsado noqda insha allahu tacaala. marka ilaahay baa faraj khayr qaba idin furi doona. hooyooyinkii saas ahaa shalay kaale arka maanta xaajiyooyin waaye, ayagaa hoostooda la imaana. nimankii suuqa wada galay ee ka caray hoostooday fadhiyaan, akhiiran waa loo soo dhammaana, ayagaa hoostooda la imaanaya. laakiin sawir baa lagu gaaraa, sahal laguma helo. waxaa lagu helaa ta ugu wanaagsan. qof kastuu la socday, naag kastuu gadaal ka guursaday, wax kastuu hooyada ahayd unbaa loosoo hoobartay oo hoosteedii la yimid. iyadan in badan bay oysay, guriga intay iska gashay iska soo ooyinayaan, iska soo oohin dhamaystaan. markaas ciyaalkooda ayagoo qosla isaga soo bixi jireen. macnaha dhaqankii hore markaad fiirisaan waxay ahayd dhaqan aad iyo aad u muhiim ah. waxaad ka ogtiin malaha waxaas oo dhanba. marka idinkana saas oo kale sameeya insha allahu tacaala. ragga lala tirtirsanayo iyo saanuu i dhahay iyo kanuu i dhahay la joojiya. weligood lama arkin iko caytamaay, weligood lama arkin ayagoo kuleeti ku dhegan, weligood lama arkin ayagoo xakam, weligood maxkamad lama geynin, weligood xaajo lagama falin. marka xaaladda noocaas waa shay muhiim, waa loo baahan yahay insha allahu tacaala. ilaahay xaqa hana wada waafajiyo. hooyooyinka hadda jirana ilaahay hooyooyin khayr qaba allah ka dhiga, allahna idin safir insha allahu tacaala. garabkiinana allah kala wax badan sabra. nacam. جزاك الله خيرا. الله سبحانه وتعالى هكو حفديو الشيخ حسن إبراهيم عيسى. الله سبحانه وتعالى ميزانك قيامة كوسار الشيخين قالقة waxaan filahayaa qaybihii dambeeta ee barnaamijka inaan ku guda jirno. qaybaha dambe ee barnaamijka insha allahu tacaala aan ku guda jirnaa. barnaamijkani wuxuu ka baxayaa qolka Islamic Taqwa Network qaybtiisa ii sheeg baltoga ah. sidoo kaleeto qofkii oo dhaafo barnaamijkan wuxuu ka daalacan karaa website-ka aan ku leenahay internetka ay ah somaliislamic.net. waxa aan waa gartay jazakum allahu khayran. allah subxaanahu watacaala ha idin xifdiyo. walaasha ugu horeysa aan soo qabanahayo waa waraaq aad iyo aad iga murugsiisay runtii, laakiin dib baan u dhigi doonaa anuu inaan sii akriyo aan rabo, si fiicanna usu lafaguro aan rabo insha allahu tacaala. haddii aan ka gudbo bal midaan aan soo qaban doonaa insha allah. waxay leedahay walaashani assalaamu calaykum waraxmat ullahi barakaatuh. waxay leedahay assalaamu calaykum waraxmat ullahi barakaatu. waxaa ii soo dhiibay saaxiibteeda, waxay ii dhahday walaasheyda iga weyn ayaa ka goy la-ahay filimaanta xunxun iyo heesaha. marka wax waliba sameeyey waan ka goy la-ahay. haddii dhaho imaw meel diin lagu barto way ila dagaale, ilaa waalid inaan maqlaan hooyo haddii aan u sheego waxay leedahay waxaas ay samaynayso ay fiirsato dagaal reer inuu dhaco baan ka baqahayaa. marka sheekh maxaan waalidka iyo gabadhaasi ku kala qaryaa bay leedahay walaashani, waa walaasheedna ka weyn sida aan filahayo. jazaka allahu khayran. falyatafadal insha allah sheekh xasan ibraahim ciise. qofku ilaahay hanuuniye hanuunis maayo subxaana watacaala. abi aalib baad la socotaa, nebi maxamed baad ku dhahay yaa cami qul laa ilaaha ila allah dheh. waa nebi maxamed, huwa calaa millati cabdilmuطalib buu leeyahay. yaa cami qul laa ilaaha ila allah dheh, huwa calaa millati cabdilmuطalib. naftaa uga baxday. inaka laa tahdii man axbabta lagu soo dejiyey. qofkaad jeceshahay ma hanuunin kartid, walaakina allaha yahdi man yashaa. qofkuu doona ilaahay baa hanuuniya subxaana watacaala. filim buu ninkaani ay gabadhaan ka reebi la-dahay. haddii ilaahi subxaana watacaala ugu talagalay inay ka hartana way ka haraysaa. haddii ka hari weysaan dadaal unbaa lays amray. wax dagaal iyo qayla korkaaga ma aha. inaad la dagaashano waaba kaa qalabba. sidaa darteed waxaa korkaaga ahaaday sida nebiga lagu dhahay fadakir inamaa anta mudakir lasta calayhim bimusaytir. walaal iska dhaaf bis baa korkaaga ahaaday. xataa ag fadhiisan adoo ag maraay walaal iska dhaaf gudub
qayla iyo waalid inay soo gaartay iyo waxaasoo dhamada loo baahnada insha allahu tacaala ducada u hay walaasha intaad ku dadaali karta ku dadaal waxaad u kaalmaysataa tala kalena haddii qof ay jiraan dad ay war ka maqlayso in qofba qof baa loogu gabadaa qofba qof baa wax ka maqlaa qofba qof baa wax dhahaa marka saa darteed haddii aad fahmi karto saaxiibo aad iyo aad u sarey hadday leedahay insha allahu tacaala kuwaasna marka u kaasho laakiin marnaba dagaal ha u gelin nacam جزاك الله خيرا الله سبحانه وتعالى هكو حفظيه شيخ حسن إبراهيم عيسى wuxuu leeyahay walaalkani assalaamu calaykum waa wiil soomaaliyeed wuxuu leeyahay assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu akhi ii gudbi waxaan ahay wiil maskiin ah waxaa dhacday buu leeyahay waxaa dhexda i gashtay dumarkani wuxuu leeyahay waxaa dhexda i gashtay dumarkani dumarkuna waa dhib buu leeyahay way dhib badan yihiin waxaase walwal igu hayo xaq aan ka galay gabar aan waqti soo wada qaadanay runtii waxaan dareemayaa inaan qof xun ahay haddana waxaan ku kala maqannahay dad isu keendiray dartooda buu leeyahay dad isu keendiray dartooda baan ku kala maqannahay buu leeyahay allah subxaanahu watacaala ha xifdiyo qoraalkii aan akrinayay baa iga dhumay dartood markaan keligay noqday markaan keligay noqdo baan aad uga fekeraa arrinkaasi buu leeyahay maxaan sameeyaa maxaad arrintaas u samaysay marka gabadhaasi marka aan wacana ama taleefankeedana ma iga qabanayso balse sheikh wuxuu leeyahay sheikhow gabadha aan ka walwalsanaa marka aan waco igama qabanayso taleefankeeda ila tali waxa aan dhab wuxuu leeyahay waxaana wax dhab ah waxaan waa wax dhab ah waxna waa wax dheela buu leeyahay waxaana kaloo la yiraahdaa dad aan ku rari doonin yay ku furin maahaya walaalku waayo qofka haddii hadda wuxuu leeyahay waayo qofkaani hadda iraadinayo gabadha kaleeto oo raadinayo buu ka hadlayaa waa qof aanan isku hubin waan iskala jiibiyaa aniga dad madaxiisa ku xushmeynaya gabadhan kaleeto oo dadkaas madaxiisa bay igu soo gashay bay leedahay gabadhan kaleeto mana rabo waxay isu keedayeysaa inay igu ballaarato balse qalbigaygu wuxuu mar walba ku taagan yahay xaaskaygii hadal naxariis badan se iyo qalbi wanaagsan bay lahayd buu leeyahay xaaskayga horeeto marka shiikow waxaas baan qalbigayga ka jar la'ahay gabar kaleetana hadda hoosteedii joogtaa tii horeetana taleefanka bay iga qaban la'adahay gabadhan kaleeto marka waxaa hadalkiisa u muuqato inuusan rabin walaalka alla subxaanahu watacaala xifdiyo qoraalkiisa waa badnaay marka inta horeetaan soo koobay marka falay tafadal insha allahu tacaala marka hore gabar iyo gabar unbuu ku waday waxaa u haysanay gabdho banaanka inay yihiin laakiin marka dambe hadalka inta dambe waxaa u malaysaa in labada ay xaas yihiin saasaan u falayaa soo maaha cabdilatiif tii horeetaba xaaskiisa ah midda ay kala maqan yihiin baa la isku diray oo xaaskiisa ah tan dambe waxa waaye qof ii sheeg familka iyo waxyaabahaas dhankooda kasoo gashayo hadda lagu shaxaadayo maadaama tii horeeto ee taleefon ka qaban laadahay asagana uu xumeeyey jazaaka allahu khayran waa sida laakiin muusan aroosin tan dambe weli nacam saasaan filayaa nacam bismillahi raxmaan raxiim waxaan kuula talinaynaa baltay sida hore saa usoo heli lahayd falankeeda gal marna dadaad wax ku xushmaysaa marna dadaa isku keendira adiga naftigaaga waxaa tahay qof oo mataqaanaa sidii la raba aan ahayne dad le waxaaga uu yahay tii horena waxaad leedahay dadaa isku keendiray haddana waxaa leedahay tan dad madaxeedaan ku xushmaynaya dad intaad iska daysid wax kasta waxaad u samaysaa ilaahay dartii subxaana watacaala waa kow gabadhan iska fasax haddaadan weli guursanin midaas hore saad ku heli lahayd falankeedana gal intaad ka helaysidna isdeji salaada si fiican u tuko ilaahay ku xirnoo subxaana watacaala in badan ilaahay bari khayrka ilaahay inaa ilaahay ku waafajiyo subxaana watacaala hanqaltaagii damaca faraha badan iska daa naagaa dhexda i gashtay iyo saanay xaaladu tahay iyo waxaasoo dhan jooji ilaahay subxaana watacaala intaad usoo go-do inta shaqadaada aad joogto intaad masaajidka ku jirto intaad gurigaaga joogto xaaladda ha noqoto ilaahay subxaana watacaala haddii aad isku xirtan waxba ma weynaysid wax allaale wixii akhayaaro aad diri karto iyo meel allaale meeshii lagaaga dooni kara gabadha kale gabadhii horena sameey wixii xaalmarin ah bixi wixii raaligelin ah sameey wax badan waxaad dhahdaa raalli ahow xaalad fara badan oo noocaas isku day insha allahu tacaala haddii mar ay kuusoo noqotona waa kaasa kulli dersi waa qabtaa tii kaloo kuu timaado iskiin dirta iyo qofkii raba inuu iskiin dirana iska ogow si fiican isaga kalsoonow
hadda dhibaatada taala intii tii hore lagu maslaxayn lahaa yaa tu kaloo cusub lagu dhisaa haddana waa lagu dhisaa waana lagaa dumina haddana tu kalea lagu keena waa lagu dhisaa waa lagaa dumina marka nin caqli leh noqo nin karti leh noqo nin ilaahay ku xiran noqo insha allahu tacaala nacam جزاك الله خيرا الله سبحانه وتعالى ha ku xifdiyo sheekh xasan ibraahim ciise barnaamijka anagoo soo gabagabeynayno ayaan qofka ugu dambeeyay ayaan ii sheeg ila talidiisa furi doonaa runtii aad iyo aad bayna iga murjisay ila talidaan walaashaana waxaan jeclaan lahaa in loo duceeyo qof walbeetana murugo ayaa ku taagan dhammaanteena allah subxaana watacaala murugadaha inaga qaado walaalaha ay ku taagan tahay dhammaantoodna murugada allah ka qaado walaashaana waxay ku bilaabaysaa asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatuh waxay leedahay gurigeyga aan ka tegay waxaan kusoo laabtay gurigeyga waxaan u tegay yar aan ilmo adeernahay iyo caruurtii bay leedahay waxa aan kusoo laabtay 5 daqiiqo kadib ayaan kusoo laabtay bay leedahay gurigeyga waxa aan ku arkay wax aan ka naxo oo aan ka argagaxo wixii aan gurigeyga ku arkay waan awoodi waayey inaan qof u sheego marka waxaan rabaa inaan dar allah dar alle u ilooba laakiin wixii aan arkay waan soo xasuusanayaa mar kasteeto bay leedahay xasuus murugo leh ayay igu reebtay arrintaasi qalbigayga ayayna ku jirtaa mar walbeeto qalbigaygana dhaawac xun ayay u gaarsiisay waana iloobi la ahay bay leedahay walaalaha muslimiinta meel walbeeto ay joogaan ha ii duceeyaan marka horeeto marka labaad waxaan sheekha weydiinayaa inuu arrinkaasi igala taliyo iyo waxyaabahaasi sidaan u arkay inuu ilaahay ilowsiiyo bay leedahay walaashaani marka sheekh xasan ibraahim ciise maxaad kula talinaysaa walaashaasi yay isku ilowsiin kartaa arrintaas horta wax la iloobi kara miya wax la iloobi karin miya wax fiican miya in la ogaas in la xasuusto waxmaba noo tilmaamin baan filayaa walaal mise wax oo waxaan iska dhahnaa ilahu ilowsii sheekh xasan ibraahim ciise meesha caruurna way joogtay nin ilma adeer la-aana guriga way iga tagtay marka wixii meesha qof walbaytu uu dareemi karaa marka alla subxaana watacaala hooyadaa soomaaliyeed ha ilowsiiyo arrinkaas marka ilmaha meesha jooga gabdho ma ku jireen إلى هرتها إلوسية إن شاء الله تعالى حياة العلص أو كل باجرة سدا ورقدة كموقتها وحياة أو لم إلا بان أهنا ويجفتها ذاتك خاركودنا إن شاء الله تعالى وحواي وحاول لقيا على برنامج شداس وكلا إنه قوة شامبا بس كمعقولة ويدعي كرتان إلهي دينتي قبر بالله هاي إلهي دينتي سمحياه فربضا بيت المانتي صار الله سعطان إن شاء الله تعالى بلا سجد عينينا أيضا البرنامج واضح يستعبع لكن اتكالي سيفي عن الله غفير صدق سيفي عن الله غفير صدق إن شاء الله تعالى انت الإسلالي كان هل الإسلالي دين دمر الله على مركبتك هلا كلا صار أي ليلة وحاد يدوين حيابا حتى مركب قال كمينة ضد أن لقى فيلين يأرنتو كتم هذا وعياذ بالله أبتبع لقى ما إني كتم هذا وعياذ بالله أظهر بالله يا إني كتمار وعياذ بالله وحد عكرتن جبر أما هاي جبر هيستا أو نينجور سدي جبر دي ربائب بالي هذا أو حواي جوري سيكون برباريسا حبرتي شقي آذيسا جبر دي بالله كيري جد اللي ماشي قصة هرتا أظهر بقويه هاي محرم بقويه وحبوقويه لما دي كره لقى إلى عليه تاس لقى يا با إن دباتك لكتماره فأنت بدن ويد عدا حالة نوع عسى marka ilaahay subxaana watacaala naguma keeno intay ka maqan tahay in ilaahay ha ka badbaadiyo intay haysatan ilaahay subxaana watacaala ha u sakhiro marka ilaahay waxaan uga rajaynaynaa ayadana dhacdadaas xanuunka badan inuu ilaahay ka tirtiro inuu ilaahay subxaana watacaala ilowsiiyo in rabbi subxaana watacaala cawad iyo bedel khayr qaba ilaahay siiyo saacadaas waxay ka dambeeyeen inay si fiican bal u taxadirto sidii loo dhahay shaqo hala aado shaqale hala aado hala baxo inta hala aado kan hala waxeeyo dhibaato kaas inta lacagaa lasoo kasbana iyo waxbaa lasoo hela la dhahay yaa khayrkii wanaagi inta la seegay yaa mashaakil dhibaato fara badan timid ilaah baa wax ilaalin kara subxaana watacaala qofki intuu joogo laftigiisa wuxuu ilaalin kara malaha marka ilaahay hana wada xafido ayadana alla xafido gabadhaan maskaxdeeda ilaahay ha usoo hagaajiyo rabbi subxaana watacaala khayrkii wanaaga ha waafajiyo maxay ku iloobi kartaa inay dikriga ilaahay qabsato subxaana watacaala alaa bidikri illaahi tadma'inu alquluub dikriga alla qalbiga ku xasilaa wax kaloo daawo ku ah ma jirto
haddii kaniin hurdo lagu siiyana waad soo kacaysaa haddii sharaba lagugu bedelo saas oo kale laakiin dikriga ilaahay mar kasta qur-aankaas akhriso waa kuu degaysaa insha allahu tacaala nacam جزاك الله خيرا الله سبحانه وتعالى ha ku xifdiyo sheekh xasan ibraahim ciise walaashu sidoo kaleeta waxay ku daraysaa waan kasoo gaaro waxba ma gaarsiin bay leedahay laakiin arrintaas waa igu soo noqonayo qof aan ka filayayna ma ahayn waa wax aad iyo aad igu naxdin badan bay leedahay allah subxaanahu watacaala ha ka qaado murugtaas iyo naxdintaas waa sidaa sheegtay sheekh xasan ibraahim ciise subxii waa jimco waan ku fasaxaynaa adigana waa daalan tahay marka waxaan jeclaanahay duca jamaca walaalo badan baa duca soo dalbanahaya marka waxaan jeclaanahay duca jamaca inaan noo gasho insha allahu tacaala allah subxaanahu watacaala ha ku xifdiye waxaan asiibnayna ilaahay waxaan fadligiisa ay ku ahaatay iyo raxmadiisa iyo galladiisa asaa ku mahadsan waxaan qalabnayna nafteeni shaytaan bay ka ahaatay ilaahayna beri buu ka yahay waxaan weydiisanaynaa inuu naga cafiyo dhammaan ilaahay xaqha na wada waafajiyo diinta allah nagu sugo inta xanuunsan caafimaadka ama allah siiyo inta qurbaysan qurbada allah ka qaado in allaala inta ilaahay subxaanahu watacaala fiisa khayr iyo wanaag ka rajeynaysa ilaahay ha ka siiyo intay wax ka xiran yihiin ilaahay ha u fududeeyo in allaala intay deemaysan deynta allah ka bixiyo in allaala inta caruur ka baaliyaysiin allah u hanuuniyo in allaala intay u hanuunsan yihiin ilaahay ha usii hanuuniyo intay ka xiran yihiin ilaahay ha usoo daayo in allaala inta ilaah subxaanahu watacaala cilmi iyo khayr iyo diin agtiisa ka rabta ilaahay ha u fududeeyo intii rabta inay qur-aanka barata allah u xafido ilaahay ha xafid siiyo intii rabta inay tafsiirka barata ilaahay ha u fududeeyo dhammaanteen ilahay shari shaytaan allah naga qabto khayrkii wanaagga allahna waafajiyo cumri dheer oo cibaada suuban leh caafimaad taam ah ilaahay subxaanahu watacaala diintiisa lagu dhamo lagu camal falo dhammaan ilaahay hana wada waafajiyo ilaahay subxaanahu watacaala waxaan ka rajaynaynaa inuu nagu abaalmariyo janooyinkiisa firdowsa naciima meelaha lamidka allahuma amiin allahuma amiin allahuma amiin اللهم آمين اللهم آمين اللهم آمين جزاك الله خيرا وجزاك كاسي وحو أحد شيخ حسن إبراهيم عيسى الله سبحانه وتعالى ها حفظيه عاو برامج كأرمها بالشدة قلك إسلامك التقوى كبحه وها إنه وغيب قلها يا شيخ حسن إبراهيم عيسى يا شيخ عبد القادر بوبي الله سبحانه وتعالى هاي إنه حفظيه لبضا سي شيخ أو إنه قلق قيب قادنا هاي برامج كاسي إلى تلي هابين والبقى جمعة كبحه قلك إسلامك التقوى barnaamijka sidoo kaleeto waxaa ii sheeg gacan weyn aad iyo aad uga geystay walaalkeena salmaan ciise alla subxaanahu watacaala ha xifdiyo waxaa idiin soo gudbinahayay anigoo cabdiladiif ah dhanka stuudiyaha iyo farsamadana waxaa inoo jooga amatullahi 55 alla subxaanahu watacaala ha xifdiyo intaan barnaamijkan mid lamida aan la kulmi doono alla subxaanahu watacaala dhammaanteen ha ina wada gaarsiiyo waxaan idinkaga tegaynaa wassalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu